salaantu waa duco taxiyatu ahli aljanna waa ahli aljannuhu salaanta jannada dhexdeeda ay isku salaami doonaan ayaa ummadda nebi maxamed salaan looga dhigay waa salaan waa duco nabadgelyadii ilaahay naxariistii ilaahay barakaadkii ilaahay korkaaga ha ahaadaan boqol qof haddaad salaanta aad ku soo salaantood u soo ducaysato oo iyakuna ducadaa duca lamida ay kugu jawaabaan waxaa laga yaabaa weli ilaahay mid keliya intoo laga dhex helo boqolka in ilaahay salaanta uu ku celiyey intoo lagu aqbalo ilaahay noloshaada uu kugu barakeeyo lidaalika yahuuddu cahdigii nebigeenna sal alla alay wasalam nebiga intay u yimaadaan ayay odhan jireen assalaamu calaykum geeri dushaada ha ahaato markaa buu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabi jiray wa calaykum waxaad tidhaahdeen baa layni yidhi assalaamu calaykum waa maxay dhimasha korkaaga ha ahaato geeri ha kugu dhacdo weeyaan dhimo markaa buu nebigu odhan jiray wa calaykum waxaad tidhaahdeen baa hayninka haynugu noqdo caaisha radia allaahu canha oo nebiga ag fadhiday ayaa nimankii nebiga hadalkaa ku yidhi bay aad ula hadashay hadal xun ay ku tidhi akhzaakum ullah lacanakum ullah markaa buu nebigu yidhi maha yaa caaisha buu nebigu ku yidhi kadaa buu yidhi kadaa cayda markaasuu nebigu ayay ku tidhi caaisha alam tasmac maa qaaluu oo waxay kugu yidhaahdeen miyaanad maqlayn markaa buu nebigu ku yidhi anu waxaan ugu jawaabay miyaanad maqlayn weliba tooda la aqbali maayo laakiin taan anigu iyaka aanu lahay baa la aqbalayaa buu rasuulku yidhi habaarkoogu aniga igu dhici maayo laakiin kayga ku dhacya buu rasuulku yidhi laanna yahuuddu qadarka nebigay garanayaan calayhi salaatu wasalaam waxay rajaynayaan in iyakana waxay doonayaan iyakuna nebiga habaar bay ula imanayaan oo geeri dushaada ha ahaata bay ku leeyihiin iyakuna waxay ka rajaynayaan in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ducada uu u ducaynayo wa calaykum assalaam waraxmat ullaahi wa barakaatu uu leeyahay in loo aqbalo bay rajaynayaan walaakiin nebiga jibriil baa u sheegoo ku yidhi wa calaykum ku dheh markaa baa caaisha caytantay markaa buu nebigu yidhi maha yaa caaisha kada buu yidhi cayda how miyaad maqlayn waxay yidhaahdeen markaa buu nebigu yidhi maa maqlayn waxaan anigu aan u yidhi weliba tooda la aqbali maayo taydaa la aqbalayaa agtiisa nebiga intay yimaadaan bay ku hidhi soo jireen iyagoo rajo ka qaba inuu nebigu yidhaahdo yarxamuka allah laakiin nebigu ma odhanaynin wuxuu ku odhan jiray yahdiikum allah allah ina soo habeeye yarxamuka allah ayaa iska leh muslimka iska leh midkiin hadduu hindhisooda buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ku xamdiyo ka ag joogay walaalkiiyo muslimkee maqlaaya waxaa ku waajib noqonaysa inuu yidhaahdo yarxamuka allah ilaahay ha kuu naxariisto adigana uu kugu jawaabo yahdiikum allah wayuslix baalakum markaa yahuuddu nebiga agtiisay ku hindhisoonayaan iyagoo rajo ka qaba inuu nebigu yidhahdo yarxamuka allah walaakiin nebigu yarxamuka allah ma odhanayne waxuu odhan jiray ilaahay hayna soo hadeeyey buu odhan jiray wa fii riwaayatina wuxuu odhan jiray adduunyadiina allah inii hagaajiyo adduunyadiina laanna nebiga calayhi salatu wasalaam nebinimadiisa way garanayaan sida ubadkooga ay dhaleen ay u garanayaan inay iyaku ay dhaleen ayay nebi maxamed nebinimadiisu xaq inay tahay way garanayaan laakiin aayaadka ilaahay bay beenaynayaan baa ilaahay fainahum laa yukadibuunaka walaakina الظaalimiina biaayaati اllaahi yajxaduun aayaadka ilaahay bay inkirayaan aayaadka ilaahay bay jala wacalaa ayay beenaynayaan ubadkooga intay soo diraan bay nebiga u keeni jireen odhan jireen aabba orod nebiga u adeeg orod nebigu ha kuu duceeyo u adeeg hulaam ayuu nin yahuudiya nebiga u soo diri jiray markaa buu nebiga u adeegi jiray yarkaa yar sal alla alay slam uu adeegi jiray nebiguna waa u ducayn jiray mar walba laanna nebigeenu naxariis socota buu ahaa safar buu nebigu baxay uu soo noqday yarkii buu waayey markaasaa lagu yidhi yaa rasuula ki yara uu bukaa markaa buu nebigu u socday calayhi salaatu wasalaam aqalkii uu ka yarjiifay buu nebigu galay xaggaa madaxa agteeduu nebigu ka fadhiistay markuu arkay yarkiiba aad u xanuunsan ayuu nebigu ku yidhi yaa ghulaam wiilkan yarow iska soo islaam markaa buu yidhi aabbihiiba sidaa u eegay aabbihii bay is ogyihiin moogta
kii yaraa aabbihii baa ilaahay ka dhawaajiyo yidhi adic abalqaasim hadalkiisa maqal yeel hadalkiisa markaa buu kii yaraa ashahaad laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu ullah dadna markaa buu ka soo baxay nebigu gurigii isagoo leh alxamdu lilaahi aladii anqadahu bi min annaar naftii baa ka dhacday kii yara markiiba ilaaha waxaan ku mahadinayaa buu nebigu uhi yarkaa yar sababtayda naartii kaga badbaadiyey baa mahadla buu rasuulku taasuu uga dhaqmay dariskiisa